gabadhii uu ninkeedu ku dilay deegaanka Gaarisa ee waqooyi bari ee waddanka Kenya. Gabadhaasi ayaa hadashay muuqaal laga soo duubay. Fartuun iyo Shiine waxay aroos ku galeen xerada Xagardheer sida ay sheegtay 12 beri ka hor. Sida idin muuqatana sawirrada qaar iyo muuqaalka fiidiyowga waa arooskoodii oo dhowaan u dhacay. Sidaan xog ku helnay, Shiine waa wiil darawal oo baabuur taxi ah wada. Fartuun eedadeeda aabaheed la dhalatay oo Sahra lagu magacaabo waxay sheegtay in habeenkii gabadha dib ku soo gaaray maalinkeedii uu Shiine uu ka maqnaa safar oo aanu joogin deegaanka. Fartuun ay gaadhay guriga hooyadeed oo aan ka dheerayn guriga lamaanaha waxayna ka dareentay xanuun aad u daran oo xanuun dumar. Xilli fiidkii ayuu Shiine uga imaaday Fartuun guriga. hooyadeed weyn ay israaceen oo gurigooda ayay tageen. Fartuun ayaa waxay ka dareentay Shiine isbedel, wuxuuna xidhay oo qafilay albaabka. Kadibna wuxuu qafilay jikada. wuxuu guud ahaanba albaabka jikada iyo kii guriga iyo kii banaanka ayuu guud ahaanba qafilay. Fartuun waxay gashay guriga waxayna ku fadhiisatay joodari ama furaash dhulka yaalay. waxaa guriga ka soo dabagalay Shiine, waa ninkeedii, wuxuuna bilaabay inuu dhowr jeer uu gabadhaasi uu dilo. wuxuuna isku soo reebay surwaal lagagaaba macawisna qoorta ayuu soo sudhay. kadib gabadha oo hoos u fadhida ayuu wajiga ka haraatiyay, wuxuuna bilaabay inuu jir dilo muddo saacada. waa siday Sahra oo Fartuun eedadeeda ay sheegtay. Fartuun waxaa loo soo qaaday weliba si degdeg ah isbitaalka Gaarisa, waxayna hadda taalaa isbitaalka weyn ee BGH ee Gaarisa ee waqooyi bari ee waddanka Kenya. gabadha aan aniga kor istaagay waxaan u daran qaarka sare oo ah wajiga, halkaasoo suharaatuugaga waday uu guud ahaanba wajiga ka bedelay. intaan joogay waxaan u imaaday xafiiska xuquuqda dumarka wafdi ka socda oo Nairobi ka imaaday. laamaha amniga iyo guud ahaanba idaacadaha waqooyi bari Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Gaarisa. haddaba gabadhan ayaa lagu tagay isbitaalka BGH ee Gaarisa. waana kan waraysiga laga qaaday gabadhaasi iyo sida ay wax u dhaceen iyo waxa ku kalifay ninkeedii inuu dilo sidaas oo dhan uu garaaco wajiga uga bedelo. banala yar daawo muuqaalkan gabadhan oo aad u naxayso. gaartay arrin maartay dadweynaha Soomaalida la xabeysay waay oo maartay social media ama baraha bulshada maartay ku faaftay. marka sidee wax u dhaceen? أنت واحد عبي مركي هذين كسبتي ذي لكن سويتي جمعها أنا راح حافظين هذه صح حافظين ممكن هذه سوي نقوم مخنا سفر يرجري حافظين الجو إيه ما ذي مخرب هذه مركي هذا سوف يقول حافظين هذه عشان أكرم سهي وين أقول هذا ذي ما بحنا مركي هذا لو وسع ميلاس حافظين أني بس كل ما كانت تنمي مركان البابنا قلنا يقول الباب كيس الحري هذا تكون بسحر خلق بسحر محاجرة وكذا عام بقولي ولا حرسة مركز يقول هي محافظة كذا وش يصير بنانك اتفاق صوري هذا نجاضر يسوي به قال خلنا تصبر هذا نسوي قفلي جاضر يعني يسكي قفل استمركان مركان قفل استمر جاضر سكر استلم سنة وفيري ومر رباحي وبلاوي إنها مركي من هو هذا نحو أكتوى نوانع قصدنا halkay ka dhacday Nairobi, Mombasa, Garissa, qaxootiga halkay ka dhacday? Xagardheer. Okay. markii kadib maxaa dhacay? kadib ana meeshii aan soo xabo waxaan kala ogaan ma jirto kadib asana wuxuu ugu fan karaa buuftay qaranti feed waxaan linka waa sama muddo goormeed maartay markaas qabteen? طبعاً سيجارة فبرد تاريخ 28 مركي أنا بيجي بيادي مارس مركي تاريخ كوان جو بري أروس بايد هي مارس 19 كوا كان أرنتي هذا بحالة قبته إلى وقت كان مارتاي بحالة قبت الدولة محيطة قبتي ما إحنا قبتي الله تحت الدولة دي قوتنا معها
أنا أسكح نصنا ولا يسوق هذا أنت مكان halkeed ku ogtay asaga ما نقول شيء كلام ما خانق police station ma tagin فلوس من حاجة غير أنتجي mar war call garis قدي واحد من ديك ويل اخترك حكى لي يقول ما أنت عليه سوق هذا maxaad codsan lahayd أصلا دولة الدوحة يخون كرتينا وهي دكتور بس dumarka qaarkood waxaa waaye way caafiyaan qofkii wax ku dhiftaa ama dila marka xogaa hoosan waad fiirinaysaa maxaad is leedahay haddii maaragtay gacan lagu dhigo miyaad cafinaysaa miyaad leedahay sharciga hamar لا شعبي من ما في بس علينا okay hadda intee ku daran xanuunka عندها أي ترى wax ma ka arkay وحياة indhaha waxay ka arkay intee ku macnaha indhaha iyo meel flow wax kaga dhuftay حاول كي أبرك ما هذا أنا قلت كذا dabeecadaha muu lahaa 19 casho ka hor macnaha markeed xogaa isguursateen kadib miyaad ku aragtay mise marka hore inuu qof dabeecad xun سنة كذا بالدواء عذان ولا صباحين مرة مسكين maxay ku dheen takhtariinta meel maa ku jaban indhaha ilaa iyo yani ما واحد جوب ما كان لكنه ما لي ما جونا iga maqan lacag oo 100 garaam oo dahaba waxaana qaadatay gabar Haweeye Yuusuf iyo Qaliib Bashiir oo South Africa nin South Africa ku magac dheer oo asagana bartira waaye ninkii naagtu waa isqabeen naagtuna waa Ali Saleemaan waxay yani naag mijarteen waaye Ali Saleemaana iyakoo dhibaataysanaan siiyey dhibaatadiina maantay iisoo yani iguma soo noqon aniga ayay Soomaaliyeed oo iyadoo ooyeysa muuqaal iska soo duubtay waxay sheegtay in dahabkeedii 20 garaam ahaa ay siisay nin ya naagis qaba balse aanay dahabkoodii soo celin ay dhaceen haddaba sidee ayay dhacdadan u dhacday goormees ayay ahayd maxaa ku kalifay in ayayadani ay dahabkeedii oo dhan oo 20 garaam ay siiso nin ya naagis qaba barnaamijka ayaynu ku qaadaynaa ha yeeshee daawada intaynaan barnaamijka u guda gelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar fideogana like saar soo dhawaada barnaamijka daliila muxuu u yeelay dhagxumo iyo iilu raadshay daliila muxuu u yeelay dhagxumo iyo iilu raadshay midaan uba dhalanin waa hooyo Soomaaliyeed oo da'a hooyadan ayaa waxaa dahab iyo lacag badan oo si xoog ah uga dhacay nin iyo naagis qaba hooyadan muuqaal ay bulshada kaga codsanayso inay ka caawiyaan inay hesho labada qof ayaa sheegtay inay lacagta amaahisay iyaga oo dhibaataysan haddana ay ka soo wareegtay muddo 18 sano ilaa ay haddana ay ka laadhay lacagteedii iyo dahabkeedii guud ahaanba meel ay adduunka ka joogaan aysan aqoon hooyadan ayaa sidoo kale sheegtay in dahabka ay laadahay ilaa hadda uu dhan yahay 100 garaam oo dahaba hooyadan oo hadda ku sugan dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay dhibaataysan tahay markay dahabka iyo lacagta siinaysay ay dhibaataysnaayeen labadan qof waliba naagtu ay markaa ilmo wadatay xaamilana ay ahayd sidoo kale dhowr jeer ayaa la xidhay kadibna hooyadan ayaa sheegtay inay ka naxday oo qalbigeedu u dabcay oo ay siisay waxay u baahnaayeen guud ahaanba marka laakiin sidii wanaagsanayd ee aan u siiyey igumaysan soo celin xoolahaygii ayay tiri igala dhuumatay bay tiri gabadhan hooyadan ayaa sidoo kale sheegtay in xoolaheedii u baahan tahay oo ay tahay qof waayeela oo aan shaqaysan karin sidoo kalena iska xanuunsanaysa ugu dambeyn hooyadan ayaa bulshada Soomaalida ka codsatay inay maanta baahan tahay lacag inay isoo ururiyaan waxaan u baahanahay maanta inay lacag isoo ururiyaan aanay ka rabin oo ay kaliya ay doonayso inay dibteeda ogaadaan dadka xoolaheedii dhacayna ay u raadiyaan hadday jirto cid taqaana iyo cid u raadin kartaba bal nala yar daawada muuqaalkan hooyadan oo aad u ilmeynaysa iska soo duubtay
iyadoo raadinaysa xaqeedii ay 18 sannadood si sharaf leh ku maamuusa ay u siisay gabadhan iyo ninkeeda, balse aan ku soo warcelin. baahi kugu raagta xoolahaaga ayaad moodaayay Soomaalidu ku mahmaada. waa kan iyo muuqaalkii. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق. waxaan salaamayaa Soomaalida meel alla meeshay joogto, Soomaali ha noqoto, Yurub ha noqoto, Ingiriiska ha noqoto, Ingilteera ha noqoto, meel alla meel ay joogtiin aan salaamayaa. waxaa jirta Yurub oo idinaan salaamayaa. waxaan ahay gabar Islaan Soomaaliyeed oo walaashi eedadiina ama waa habartiin ama walaashiin. waxaa iga maqan lacag oo 100 garaam oo dahaba. waxaana qaadatay gabar Haweeye Yuusuf iyo Qaliib Bashiir oo South Africa nin South Africa ku magac dheer oo asagana bartiro waaye. ninkii naagtu waa isqabeen. naagtuna waa Ali Saleemaan. waxay